waxaan ku faraxsanaa inaan idiin shaqeeyey 5 sanadood waxaan ku faraxsanahay inaan idiin oofinayo balan aan idiin qaaday caasimadda Hargeysa waxaanu nimi iyadoo aan lahayn hal wado oo laamiya oo la sheegi karo oo macna leh ayaanu nimi dawladdaas waxaan ugu yimid shaqaale carbisan nidaam shaqeeya oo aad iyo aad u qurux badan dad jecel inay u shaqeeyaan caasimadda Hargeysa golahaas inay yihiin golo xilkas ah oo runtii iyaga laftooda u tafaxaytay sidii magaalada loo horumarin lahaa ayaan halkan doonayaa in uga karo muddadaan soo shaqaynaynay waxaanu u soo adeegnay bulshadayada golo midaysan baanu hayn tiim midaysan baanu hayn midnimaan ku soo shaqaynay maantana waxaan u rajaynayaa shacabka reer Hargeysa inay midnimo ku sii shaqayn doonaan hubaal waxa ah madaxdu kaligeed inaanay horumarka Hargeysa lala dooniyay gaarsiin kareen ilaa madaxdu ay hesho shacab wanaagsan oo la shaqeeya shan sano ka hor caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa waxay ahayd magaalo baahi weyn u qabtay la jaanqaadka caasimadaha la jaarka ah ee sida weyn loogu hagar baxay waxay ahayd magaalo tirsatay bilcila'aan baahsan iyo baahiyo xooggan oo dhinac kasta wadooyin u ooman dayactir iyo dhisid iyo mareenno aan la jaanqaadi karin baahida sii kordhaysa nadaafad u baahan dadaal aan kala go' lahayn adeegyo waxbarasho kuwo caafimaad qurxin iyo si guud bilic magaalo oo sugaysa gacmo iyo aragti mideeya caqabadihii yaallay waxaa barbar socday fursado haddii la darso oo loo dhugma yeesha laga faa'iidaysan karayay Hargeysa waxay lahayd awood u saamaxaysa inay noqoto magaalo casri ah riyadaas waxa ay shacabka reer Hargeysa u arkayeen mid fog balse ku rumaysmaysa helitaanka gole deegaan iyo hoggaan leh himilo hufan iyo hal adeeg 17 Juun ee sannadii 2021 waxay ahayd maalintii rumaynta riyadaas bilowga u ahayd markii la dhaariyay golaha deegaanka caasimadda shacabka reer Hargeysa waxa ay filashadoodu ku salaysnayd waxqabad dhab ah daahfurnaan iyo isbeddel la taaban karo halku dhiga bulshadu ay haysatay waxa uu ahaa Hargeysa cagaaran Hargeysa dhisan Hargeysa nadiif ah halku dhigaasi ma ahayn hadal la yidhi oo keliya balse waxa uu ahaa ballan hoggaanka iyo shacabkuba wadaagaan rumayntiisana wakhtigu soo siday golaha cusub ee caasimaddu waxa uu la yimi aragti ka fog hadal keliya aragti ku qotanta waxqabad qorshaysan oo muuqda aragti lagu horumarinayo adeegyada asaasiga ah lagu furdaaminayo caqabadaha hortaagan horumarkaas isla markaana lagu dhisayo kalsoonida shacabka ee gudgalka ku dhowaatay waxaanu bixinay dadaal kasta oo suuragal ah oo aanu ku oofinaynay ballamihii aanu u qaadnay shacabkayaga waxaan aada uga xumahay wixii aan noo qabsoomin ee dhaqaaluhu noo suuro gelin waayey waxaan halkan ka qirayaa inaanan dadkayaga hagran u dadaalnay laakiin intii tamari keentay ama ay naga baajisay waxaan halkan ku xusayaa sidaan uga xumahay ka hor intii aanay xilka la wareegin golaha deegaanka caasimadda Hargeysa qodobada ay sida joogtada ah uga hadli jireen waxaa hormood u ahaa dhibaatada ka taagan xaaladda nadaafadda magaalada gaar ahaan dooxa weyn ee Hargeysa maadaama ay cabasho iyo qayladhaan joogto ah ka soo yeedhi jirtay bulshada ku dhaqan caasimadduna carabka ku adkayn jireen muhiimadda ay leedahay in si degdeg ah wax looga qabto dooxa Hargeysa waxa uu ahaa dooxu taariikhda hore ee magaalada goob qurux iyo bilic dabiici ah ku xusnayd goob dadku ku kulmaan garta lagu noqo loona damaashaad yimaado soo jireenkaa hore waxaa beddelay in dooxu noqday goob qashinqub ay ka soo burqanayaan ur iyo arag xumo joogta ah dayaca ka muuqday dooxa Hargeysa iyo guud ahaan nadaafadda caasimaddu ma ahayn mid qarsoon waxay ahayd mid qof walba arkayay dareemayay cabsidiisuna ku mudnayd balse ay yarayd rajada wax lagaga qaban karaa
markii ay golaha deegaanka ee duqa caasimadda maayir mooga hogaaminayay yimaadeen waxa ay si cad u qaateen go'aan shacabka reer Hargeysa aad ugu riyaaqeen una soo dhoweeyeen kadib markii golahu go'aamiyey in horumarka iyo bilicda caasimaddu uu ka bilaabmayo nadiifinta dooxa magaalada Hargeysa. waxa uu golahu bilaabay qorshe lagaga saarayo qashinka dooxa magaalada iyadoo lagu darayo saarista qashinka ku baahsan wadooyinka iyo xaafadaha. qashin saaristaasi waxay ahayd imtixaankii ugu horreeyay oo hor yimaada golaha. dadaalku kuma ekaan laablakac hal mar ah. golahu waxa ay aasaaseen barnaamij cusub oo la magac baxay ololaha caasimadda Hargeysa ee khamiis bil u dambaysa. waxa uu ahaa olole joogto ah oo bil kasta la qabto. ololahani waxa uu dhaliyey iskaashi, mas'uuliyad iyo faham qoto dheer oo ku aadan muhiimadda iyo waajibnimada in la helo nadaafad loogana shaqeeyo si joogto ah. arrimahaas oo isbarkani waa sababta ugu weyn ee golaha deegaanku u bilaabeen waxqabadkooda dhanka nadaafadda. dowladda hoose Hargeysa may jirin olole nadaafadeed oo lagu xoojinayo ama kor loogu qaadayo wacyiga ku dhaqan dadweynaha caasimadda. runtii meeyarka ayaa fikradda Cabdikariin Axmed Moogaa lahaa, gulihiisuna runtii way ku raaceen, wayna soo dhoweeyeen. guud ahaan dowladda hoosena waa wax runtii initiative ku cusub ay ahayd oo runtii aad noo dhaqaajiyey, dadweynihiina ay aad iyo aad runtii ay u soo dhoweeyeen. meelahan ka bilownay nadaafadda waxaa ka mid ah dooxa weyne Hargeysa oo runtii aad ogeydeen sida uu ahaa qof kastoo Hargeysa aanu reer Hargeysaan la hadlaya kolley qof kastoo reer Hargeysa ku dhaqan oo garanayo dooxu sidoo ahaa. runtii May bay la wareegeen 2021 waqtigaasi golahan imika jooga ee waqtigoodu sii dhamaanaya. ololihii koobaad waxaan xasuustaa markii aan statistics-kii aan sameynay in 26,606 tan aan runtii ay noo suura gashay in bishii koobaad ama ololihii koobaad aan caasimadda ka saarnay. taa waxaa daba socday in la hagaajiyo adeegyada shirkadaha nadaafadda qaada oo runtii aanu markii hore isla xisaabtankoogu aad iyo aad runtii ugu koobnaa oon haba yaraatee markii hore in shirkadii la dabagalo, la qiimeeyo adeegga dadka ay u haysaa ay gaadhsiinaysaa waa noocee. runtii wuxuu daba socdoon fikradda ololaha, iyadana runtii waa lagu guulaystay. halka uu 26,606 oo ololo ah bishii koowaad ee khamiistii ugu horreysay laga saaray, iyagoona isla sanadka 6 bilood 47,000 oo tan ay qashinay magaalada caasimadda ay runtii ay ka saareen. dooxa Hargeysa uu ahaa meel qashin guba, magaaladuna ay markaa qashinka la ciirciiriyay. deena magaaladina laga dhameeyay, dooxana laga dhameeyay. maantana markaa ay noo suurtagal tahay inaynu sidan ugu raaxaysano, isku wareysano, markaa jawiga quruxda badan ka soo noqdo. markii la dejiyey aasaaska iyo wax ka qabashada nadaafadda caasimadda Hargeysa waxaa si toos ah loo bilaabay dhismayaasha wadooyinka, kuwaasi oo ay la socdaan biyo-mareenno casri ah. wadooyinku waa halbowlaha iyo isku xidhka magaalooyinka iyo caasimadaha. Hargeysa wadooyin qabyo ah oo dhammaystir u baahan iyo wadooyin dhismo dhammaystiran u baahanba baahidooda way qabtay. golaha deegaanka dowladda hoose waxa ay u qalab qaateen bilowga wejigii labaad ee waxqabadka oo ah horumarinta wadooyinka caasimadda Hargeysa, kaasoo lagu guulaystay in la dhiso wadooyin dhan 139 wado oo isugu jira 86 wado oo cusub iyo 53 wado oo lagu sameeyey dayactir dhammaystiran. dharar ahaanna wadooyinkaasi waxa ay dhan yihiin 125 kilomitir. dhismayaasha wadooyinku ma ahayn oo keliya ka jawaabidda baahi taagnayd, balse waxa ay noqdeen albaab cusub oo nolosha shacabka u furmay. waxa ay sahleen dhaqdhaqaaqii bulshada, waxa ay kobciyeen ganacsiga, waxa ay xoojiyeen isku xidhnaanta xaafadaha, isla markaana fududeeyeen halista adeegyo ay hore u adkayd in la gaadho. runtii muddada 5 sano ah ee golaha deegaanka ee duqa caasimadda Cabdikariin Axmed Moogaa hogaaminayay uu joogay, waxaa magaalada laga dhisay wadooyin ka badan 130 kilomitiro asfal roogisa oo marka wadooyinka ama rooga ay Soomaalidu tiraahdo. wadooyinka markaa 9 degmo caasimadaba waa laga fuliyey. wadooyinka markaa waxaan ku dadaalay intii markaa taalka ahaa in wadooyinkaasi ay noqdaan wadooyin runtii muddo jiri kara, muddo shaqayn kara, sidoo kalena noqda wadooyin aan kala midba meel ku taala inaanay noqonayn, in runtii laga shaqeeyo isku xidhka magaalada. marka mashaariicda waqtiga muddada la fuliyey
waxay runtii fudeydiyeen in maanta 9 degmo ee caasimadda ay si fudud isugu xidhmeen. golaha deegaanka caasimadda Hargeysa waxay si dhab ah u garowsadeen in waddo kasta oo la dhisaa ama la dayactira aanay sii jiri karin haddii aan la helin nidaam biyaha roobka si hufan u maaraynaya. sidaas darteed waxaa la bilaabay dhismaha biyo-mareenno ballaadhan oo isugu jira noocyo kala duwan, kuwa waddooyinka dhinac mara, kuwa dhulka hoostiisa mara, iyo sidoo kale waddooyin gebi ahaanba loo sameeyey shub adag oo aan biyuhu wax u dhimi karin. waxaa la dhisay 14 biyo-mareen oo ah nooca loo yaqaano Calverbox, 38 biyo-mareen oo ah nooca shubka ah, kuwaasi oo lagu sameeyo isgoysyada waddooyinka, gaar ahaan goobaha biyo-mareennada ah ee biyuhu ka gudbaan, 10 biyo-mareen oo xooggan ahna nooca dhinac socda waddooyinka, qaarkoodna dhulka hoostiisa maraan ayaa lagu guulaystay hirgelintooda. dhismaha hal biriish oo weyn oo gebi ahaanba laga maalgeliyey cashuurtii shacabka, iyo ka qayb qaadashada dhismaha iyo dayactirka biriishka fooqa jajabka iyo biriishka weyn ee Hargeysa oo isagu qarka u saarnaa inuu dumo, qarash aad u badanna la geliyey sidii dayactir iyo dhismo loogu samayn lahaa. runtii horta waddo kastoo la dhisayo waxaa loo sameeyaa wixii markaan u aragno in biyaha lagaga maarayn karo, ama Calverbox in la geliyo ha noqoto, ama ha noqoto markaa in meelaha aan levelku saamaxayn in Calver la geliyo, in Irish bridge biyo ka talaabaan shuba laga sameeyo. marka imika waddooyinkaas haddaynu isku wada darno Irish bridge ku yaala ilaa 60 bay kor u dhaafayaan, sidoo kale Calverbox 20 kor u dhaafaya ayaa ku yaala. waxaa sidoo kale iyadana xusid mudan in Calverbox gaar ah oo aan waddooyinba marka iyagu ku oole gaar u yaala ay jiraan oo meelaha laagaha dadka kala xanibay laga sameeyey. waxaan sidoo kale iyadana ku darayaa in muhiimadda koowaad aan markaas ku dayno bal at least waddo kastoo la sameynayo in biyaha laga maareeyo. iyadoo la xoojinayo korna loo qaadayo bilicda iyo cagaarinta caasimadda Hargeysa, golaha deegaanka caasimaddu waxa uu si gaar ah mudnaanta u siiyey dhiraynta iyo cagaarinta magaalada si kor loogu qaado bilicda iyo deegaanka qurxoon ee caasimaddu u qalanto. waddooyin halbowle ah ayaa lagu qurxiyey dhirayn casri ah oo indhaha soo jiidanaya, taasoo si weyn uga qayb qaadatay wax ka beddelka iyo wanaajinta muuqaalka magaalada. beerta xorriyadda Hargeysa oo ah goobtan muuqaalkeeda idiin muuqda ayaa ka mid ah goobaha sida weyn loo cagaariyey, iyadoo lagu sameeyey isbeddel aad u weyn, waxayna imika tahay goob nasasho oo ay ku nastaan dadka jimicsiga lugta ah u soo doonta gudaha beerta. cagaarintu kuma koobnayn beerta xorriyadda oo keliya, balse dooxa Hargeysa oo hore uga soo gudbay marxalad adag oo nadaafadeed ayaa nasiib u helay inuu ka mid noqdo goobaha lagu beeray dhirta. waxaa taa barbaryaalay hirgelinta jardiimooyinka lagu nasto, sida taallada gacanta oo iyadu markii hore ahayd goob qashinka lagu qubo, imikana muuqaalkan idiin muuqda yeelatay, soona jiidatay indhaha reer Hargeysa ee muddada u heelanaa in la helo Hargeysa cagaaran. horumar kasta oo ka muuqda gudaha caasimadda Hargeysa waxaa ka dambeeya hoggaan iyo golo muujiyey isku duubni, isu tanaasul iyo wada shaqayn ku salaysan hiigsiga iyo hirgelinta horumarka Hargeysa. isbeddelka ballaadhan ee ka hirgalay caasimaddu ma ahayn mid si fudud ku yimid, balse waxa uu ka dhashay aragti lagu midaysan yahay, go'aan iyo fulinka go'naansho ku dheehan tahay, iyo wada shaqayn joogto ah oo aan loo nasan. bilicdu waa waxa weyn, iyaduna waa qayb ka mid ah shaqada ballaadhan ee dowladda hoose ee caasimaddu ay uga mas'uul tahay dadweynaheeda ku dhaqan. runtii waxay dhaxleen maamulkan imika jooga magaalo runtii aan cagaarinteeda iyo iftiiminteeda runtii ay aad u hooseyso. runtii maanta waddooyin aad u fara badan ayaa dhir qurux badan oo la jaan qaadaysa caasimadda, oo la jaan qaadaysa quruxda iyo cagaarintii oo inta badan Maayir Cabdikariin Axmed Mooge sheegay aan runtii ay muddada 5 sano ay dowladda hoose ee waxdani ka geysatay. waddada main roadka ee diyaaradda ka soo horjeeda, waddadan New Hargeysa maamuus iyo Golden iyo agteeda, runtii waddada weyn ee maxaa la yidhahdaa shimbirta, runtii waddooyin aad u fara badan, xitaa jardiimooyin oon caasimadda ka jiri jirin oo ugu horeysa Harwanaag, Siirooga Madaarka, idaacadda, halka waddada Beyle, runtii intaasoo jardiimooyin oo runtii loo gol leeyahay inay dadku
ay sawirana ku qaadan karaan, gelinka dambe iskaga nafisi karaan, ay sawiraan ku geli karaan iyaga iyo caruurtooda iyo qoysaskooduba ay runtii horta muddadaasi noo suuro galay. waxaa intaa daba socday in waddo kasta oo la cagaariyo la qurxiyo runtii aanu ku sameynaynay iftiimin. runtii wax la taaban karo ayaan dhanka bilicda oo runtii maayirku dee waqtigii uu musharaxa uu ku faanay uu ku ololay ayaan aaminsanahay runtii inaan maanta aanu ka qabanay. waxaa ka mid oo kale labada biriish ay caasimaddu leedahay, runtii laba biriish oo madow bay ahayd oo xitaa securitigooga uu mararka qaarkood khatar ku jiray. maanta waxay ka mid yihiin meelaha ugu bilicda fiican ee laytinka leh ee runtii sida joogtada ah runtii looga shaqeeyo loo dayactiro. runtii waxaan aaminsanahay wax weyn in bilicdana laga qabto insha allah. cagaarinta waddooyinka caasimaddu ma ahayn baahida keliya ah ee ka taagnayd waddooyinka. waxaa intaasi dheerayd oo baahidooduna xoogganayd helista iftiimin casri ah oo kor u qaada bilicda iyo amniga guud ee magaalada. waddo kasta oo la cagaariyey waxaa la socotay oo laga hirgelinayay iftiimin casri ah taasoo muujinaysa quruxda iyo bilcanaanta waddooyinka caasimadda. 11 waddo ayay ku guulaysatay dowladda hoose ee Hargeysa in ay ka hirgeliso iftiiminta. Hargeysa may lahayn haba yaraatay wax iftiimina, kaliya waxaad arkaysaa meelaha qaarkood waddooyinka qaarkood in solar yaro iftiinkoogu aad u runtii daciif u ah oo runtii aanu waqtigaasi ka jiray. laakiin anagoo kaashanayna shirkadaha leydhka ee magaalada Hargeysa ka hirgala ee ugu muhiimsantahay Sunpower iyo Telesom waxay noo suura gashay in dhammaan waddooyinka ugu muhiimsan caasimadda gudaheeda khaasatan downtownka in maanta alxamdulillah ay noo wada iftiimin yihiin. biraha iyo lightinka runtii ikhtirac dowladda hoose iyo fikradda maayirkun bay ku timid. kooxdan idin muuqata waa kooxda madaalayaasha ah ay dowladda hoose ku faanto. waxay u carbisan yihiin kooxdan inay qabtaan shaqooyinka ugu adag ee caasimadda yaalla. halgeeyada aamusan ee 20aad waa lafdhabarta howlgallada culus sida bannaynta biyo-mareennada xidhma, nadiifinta waddooyinka muhiimka ah iyo gurmadka degdega ah ee shacabka caasimadda Hargeysa ee xilli roobaadka. waa koox heeganka ku jirta 24 saacadood mar kasta oo loo baahdana diyaar u ah in ay fuliyaan shaqooyinka kamakacdada. golaha deegaanka caasimadda Hargeysa waxay aqoonsan yihiin muhiimadda kooxdani leedahay. taas sababteeda waxa ay qaadeen tallaabooyin wax ku ool ah oo kor loogu qaadayo niyadda shaqo ee madaalayaashan shaqada caasimaddoodu ka go'an tahay. waxaa ka mid ah tallaabooyinka mushaharka oo loo kordhiyey, xarun iyaga u gaar ah oo loo dhisay, iyo adeegyada caafimaadka oo looga dhigay gebi ahaanba lacag la'aan. dowladda hoose ama waaxdu waxay leedahay shaqaale la yidhaahdo 20aad oo runtii 24 saacba u howlan inay xaaladda degdega iyo nadaafadda ay mar walba ka shaqeeyaan. si golaha fulinta dowladda hoose ee Hargeysa ugu taageero shaqaalaha gudashada waajibaadkooda, waxay qaadeen tallaabooyin wax ku ool ah oo nolosha shaqaalaha oo dhan si togan u beddeshay. mushaharkii shaqaalaha oo ahaa mid aad u hooseeya waa la kordhiyey, waxaana markii ugu horreysay la sameeyey nidaam mushahar qaadasho oo cadaalad ku dhisan, kaasoo lagu saleeyey aqoonta iyo heerka shaqo. waxa uu nidaamkaasi meesha ka saaray kala mushahar badnaantii aan xaqa ku taagnayn iyo dulmigii qaawanaya ee shaqaalaha haystay. sidoo kale shaqaalaha waxaa la siiyey xuquuq ay lahaayeen muddo dheerna ka maqnayd sida xaqal ciidka, xaqaasoo markii ugu horreysay si rasmi ah loo hirgeliyey, farxadna gelisay shaqaalaha dowladda hoose. waxaa la xoojiyey xafiiska shaqaalaha dowladda hoose, xafiiskaasoo loo sameeyey nidaam casri ah oo lagu diiwaan geliyey dhammaan xogta shaqaalaha iyadoo lagu lamaaneeyey taas hirgelinta qayb gaar ah oo qaabilsan diiwaangelinta iyo la xisaabtanka shaqaalaha. isbeddellada waaweyn ee golaha uu hogaaminaya Maayir Mooge ay ka sameeyeen nidaamka shaqaalaha dowladda hoose waxaa ka mid ah inay meesha ka saareen dhibaato xooggan oo jahawareer, amni xumo iyo buuqba keeni jirtay, taasoo ahayd in mushaharaadka shaqaalaha lagu bixin jiray lacag caddaan ah oo gacanta la isaga dhiibo. balse maanta habkaas hore gebi ahaanba waa laga guuray. shaqaalaha dowladda hoose waxa ay mushaharkooda ku qaataan bangiga Somaliland iyadoo qof kasta lacagtiisu si toos ah ugu dhacdo moobilkiisa. dhammaan tallaabooyinkaasi waxa ay kor u qaadeen niyadda, kalsoonida iyo kartida shaqaalaha dowladda hoose ee Hargeysa, taasi oo iyana dhiirigelisay shaqadii socotay.
waxaan ururinay xogtii shaqaalaha dowladda hoose Hargeysa anagoo adeegsanay markaa nidaamyo digital ah oo imika ay waaxdu ay runtii ama qaybtaas ay leedahay system lagu maamulo transparent ah oo si fudud markaa lagula socon karo attendance-ka shaqaalaha performance-kooda dhaqdhaqaaq kasta oo ka dhacaya hadii shaqaalaha fasaxayda ku maqan hadii nooc ule ay yihiinba ay si fudud markaa hadii tahay maamulkii sare oo yuusaradoodii leh middle level managers oo iyagu yuusaradoodii leh iyo qaybtaasi xafiisyada markaa unitiska ay khusayso oo mid walba user iyo role gaar uu leeyahay markaa runtii wax weyn baa iska bedelay habsami socodka iyo la xisaabtanka shaqaalaha dowladda hoose Hargeysa waxa kaloo runtii aan joogteynay in aanu ilaalino xuquuqda shaqaalaha dowladda hoose Hargeysa oo ku ka yahay mushaharka shaqaalaha dowladda hoose Hargeysa oo sida laga warqabo oo waxyaalaha ugu horeeyay aan markaa xoog ka saaray ahayd in dib u eegis lagu sameeyo bayrolka shaqaalaha oo meelaha dhibaatada ugu badan ay ka jirtay ahayd iyadoo ay jirtay in laba shaqaalaha oo isku title ah oo shaqo isku mid ah qabta ay lacag kala duwan xiriir jireen darajooyin kala duwan ay lahayn laba cashuur qaade oo midna la qaadanay 3 milyan ka kala laga yaabo in 500 kun xiriir iyadoo ay jir wax alla wax dadkaasi nidaam ah oo loo raacay laakiin waliba sidoo loogu kala dhaweeyay maamulada loogu sameeyay gunooyinkii waxyaalahaas arintaas markaa shaqadana runtii riyaamisay moralka shaqaalaha dishay cadaaladii meesha ka saartay waxaan meeliyaan markii ugu horeysay baan xoog saaray maayirku ku dhiirriday in markaa la saxo si cadaaladana markaa reform loogu sameeyo bayrolka shaqaalaha maanta shaqaalaha dowladda hoose ee Hargeysa dhammaantood waxay leeyihiin iskiil iyo gunooyin isku mid ah cashuur qaado oo dhan baa siman kormeer oo dhan baa siman agaasim oo dhan baa siman agaasim ku xigeen baa siman waxay leeyihiin darajooyin iyo gunooyin siman oo ay runtii u xaadiraan arrintaas runtii waxay keentay in markaan reformka sameeynay mushaharkii shaqaaluhu deesaw kala duwanaa 90% in ka badan uu mushaharku kor u kaco in u dhaxaysa 20% ilaa 4%. dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa waxa ay si weyn u xoojisay habraacyada iyo systemiska kuwaas oo lagula dagaalamayo laguna dabar jarayo musuqmaasuqa iyo maamul xumada heer kasta oo ay joogto kor u qaadista iyo xaqsiinta shaqaalaha dowladda hoose waxaa barbar yaala iskala xisaabtanka shaqadii loo igmaday mas'uuliyadda hufnaanta iyo daacadnimada ay u baahan tahay waxaa la tegey waaxda hantidhowrka gudaha isla markaana waxaa la dhisay xafiis sharci oo si dhow la socda cid kasta oo ku kacda ku tagrifal ama xatooyo xoolo umadeed sidoo kale waxaa la xoojiyey guddida anshaxa waxaana tallaabooyin cad laga qaaday shaqaale iyo mas'uuliyiin ku xadgudbay nidaamka iyo sharciga u degsan dowladda hoose tallaabooyinkaasi waxay noqdeen farriin adag oo muujinaysa in aan gebi ahaanba la aqbali karin musuq iyo wax isdabamarin kasta nidaamyadaasi markaan hirgelin waxa ku guuleysanay in uu resource yaraay dadka loo hayay uu runtii ilaashamo aanu dhicin in corruption nooc wala uu yahay $1 lahaatay uu ka dhaxdhaco marka nidaamyadaas oo nidaamyada ugu weyn oo hanti dhowrka guud qarankuna uu runtii aad noogu abshiid gareeyay dhaqaajinta horumarka iyo fulinta shaqooyinka culus ee caasimaddu ku taamaysay waxaa sees u ahaa dhismaha goobaha laga hago laguna fuliyo adeegyada kala duwan ee bulshada markii ay xilka la wareegeen golaha deegaanka caasimadda Hargeysa waxa ay la kulmeen xarumihii loogu adeegi jiray shacabka oo ah kuwa ay ka muuqato dayac iyo bilic xumo baahsan kana fog xafiisyo u qalmayn dadka cashuur bixiyayaasha ah loogu adeego golaha deegaanku waxa ay ku dhiiradeen samaynta isbeddel taariikhi ah kaasoo dib u habayn dhisme iyo casriyeyn baaxad leh loogu sameeyey xarumaha dowladda hoose dhismayaal dabaqyo ah oo qurux badan ayaa waxqabadka ka soo baxay kuwaasi oo gaadhay 6 degmo dhammaan xarumahaasi maanta waa xarumo u qalmayn shacabweynaha Hargeysa loogu adeego waxaa taa barbar socday dhismaha xarunta dhexe ee dowladda hoose ee Hargeysa kaasoo laga hirgeliyey dhismo fooq oo bilicdiisu beddeshay guud ahaan muuqaalkii hore ee xarunta dowladda hoose golaha deegaanka caasimadda Hargeysa hal abuurkeeduna walaha maayirka caasimaddu waxay ku guuleysteen 5 sano inay dhamaystiraan 6 degmo oo waaweyn oo dhammaantoodba ah waxa la yaqaan G+1 ama fooqyada dabaqa kuwaasoo 6 degmo halkii marka hore ka ahaayeen
hal xafiis laba xafiis ee gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka xoghayaha iyo madaxda kale waaxdaba ee laba qol ama laba xafiis ee ku wada kulmi jireen waxay ku guuleysteen 5 sano oo dhammaystirmay 6 degmo dhismood 3 degmo dhiman dhammaystirka waxa uu raacay in la dhigay dhammaan xafiisaas qalabeyntoodii lagu shaqaynayay iyo wixii adeegay gudaheeda lagaga qabanay haddii tahay shaqaalihii haddii tahay qalabkii shaqada haddii tahay furniture-kii haddii tahay quruxdii kale iyo dhirayntii iyo bilicdii haddii tahay ee lagu guuleystay waana ta keentay in Hargeysa 3 degmo dhimanna ay rajada soo qabanayaan dhammaystirinta waqtiga loogu daray dowladda hoose waxay isbeddel muuqda ku samaysay dugsiyada hoose dhexe ee ay maamusho kuwaasi oo markii hore dayac iyo duruufo aan ku habbooneen waxbarashada ay dul taagnaayeen sannadkii 2023 horraantiisii wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Somaliland waxa ay si dhammaystiran ugu wareejisay dowladda hoose ee Hargeysa 174 dugsi oo ku yaala guud ahaan degmada Hargeysa qorshe joogto ah oo sannad kasta lagu dayactirayo waxna lagaga beddelayay dowladda hoose ee magaalada Hargeysa u dhigtay dhammaan dugsiyadaas qorshahaasi waxa uu horseeday guul si muuqda wax uga beddeshay muuqaalka dugsiyada deegaan habboon oo waxbarasho ka suurtoobaysana ka dhigtay waxa uu saameeyey isbeddelkaasi sidoo kale ardaydii wax ka baranaysay dugsiyadaas kuwaasoo uu ku biiray rajo iyo yididiilla aan soohdin lahayn ka warhaynta iyo dayactirka joogtada ah ee iskuulladaasi waxa uu horseeday in degmooyinka qaar laga waayey dugsi dayacanba isla markaana tiradii ardaydii isdiiwaan gelin jirtay dugsiyada dawliga ahna ay si weyn u korodhay dadaalka dugsiyadaas la geliyey iyo hagarbaxa loo hagarbaxay waxa ay ka dhigtay inaanay noqon keliya goobo wax lagu barto balse ay u raacday taasi in ay noqdeen astaan ka mid ah astaamaha lagu aqoonsado waxqabadka dowladda hoose ee Hargeysa maanta waxaan ku guuleysanay in 27 dugsi hoose dhexe oo caasimadda si dhammaystiran runtii maanta haddaanu tagno wax alla wuxuu u baahan yahay runtii ma jirto si dhammaystiran baa loo inta kale ee aananu gaadhin ee aan 27ka ama 9ka aanu gaadhinna runtii waxa laga qabtay in mid kala 5 class loo dayactiro mid marmarka ama landscape-ka wax laga bedelo mid macaamulayaashiisii iyo runtii dee ardaydii loo gunayo oo guna fiican la siiyo runtii taas waxay ayna dhexashiisay in markii aanu adeegyadii caafimaad ee waxbarashada aanu hagaajisayn aanu iskuulaadkii qurxinay aanu dhir ku beernay ee deegaankoogii la hagaajiyay ee ardaygii uu la saaxiibay iskuulka in enrollmentkii ama ardaydii soo gelaysay dugsiyada hoose dhexe oo runtii aad ogeydeen awal laga ceerari jiro kuwa privatekaa loo balna in enrollmentkii uu kor u kacay waxaan ka soo bilownay aanu la wareegnay ardaydoo 27,000 ah waxaan maanta sanadkan 2026 aan maraynaa 93,218 arday inay iskuulaadkeena hoose dhexe waxaan xusi karnaa iskuulka hoose dhexe ee Daloodho iskuul private ayaa u dhow runtii waxaad makhraati loo yahay dadka eriyada xaafadaasi degan inay kii private-ka intay ardaydoodii ka soo saareen ee kii dawliga ay ku soo darsadeen marka dowladda hoose hagaajisay ama ay u samaysay ardaygii u diyaarisay meel ardaygii uu la saaxiiba runtii qalabkiisii iskuulka loo hagaajiyey kuraastii iyo miisaskii loo hagaajiyey samuuradihii loo hagaajiyey waxaan iyadana sameynay in ka badan 10 health centers ayaan sameynay ama MCH baan idhaahno oo ku yaala magaalada Hargeysa gudaha iyo dibaddaba degmooyinka qaarkood hal MCH bay lahaayeen maanta markaa loo kordhiyey oo laba iyo wax leh qaar aan lahayn problemka loo sameeyayna guud ahaan waxa la sameeyay markaa wala qalbeeyay shaqaalaha oo support staff-kooda waxbarashada caafimaadka dawladda hoose ayaa bixisa horumarka dhabtaahi waxa uu macno yeeshaa marka uu taabto nolosha dadka nugul ee masaakiinta ah ee sida gaarka ah ugu baahan garab istaagga dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa waxa ay qaaday tallaabo bini'aadantinimo oo baaxad leh iyadoo dib u dejin iyo daryeel u samaysay ku dhowaad 115 qoys oo danyar ah kuwaasoo degdeg ugu baahnaa caawin iyo gargaar goobihii la dejiyey qoysaskaas waxaa si dhammaystiran loogu diyaariyey adeegyada asaasiga ah sida leerka biyo iyo taageero nololeed
taas oo ka dhigtay in tallaabadani aanay ahayn oo keliya rarista dad balse ay tahay badbaadin nololeed oo rajo nolol dhismaysaana ku lamaan tahay. muddadii golahani waxaa noo suuro gashay in 1278 qoys runtii aanu si rasmiya meel ay degaan dhul ay leeyihiin runtii dowladda hoose ee Hargeysa iyo maamulkeeduba oo caasimadda Cabdikariin Axmed Mooge maayirka ugu horeeyay runtii ay noo suuro gashay. runtii waxaa jiray meelo badan oo dad badan oo dadkii imika ugu dambeysay aanu rabnay waa wadada 150 dhanka Maxamed Mooge 201 qoys baa waxay dhex deganayeen wado muddo 12 sano. runtii maanta dadkaasi waxay leeyihiin dhul iyagu magacooga iyo milkiyadooda ay ku qoran tahay, dhul iyagu iska leeyihiin. dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa waxa ay si weyn u xoojisay korna u qaaday shaqada iyo hawlaha ay ku fogan tahay waaxda nabadgelyada dowladda hoose. markii ugu horeysay waxaa la mideeyay guddiyada nabadgelyada 9 degme ee Hargeysa. tallaabadani waxa ay dhistay isku duubnida isla markaana waxa ay suurto gelisay in si wada jir ah looga shaqeeyo sugidda amniga magaalada. muddo 5 sano ah waxaa lagu guuleystay in la dhiso 15 rugood oo cusub iyo 8 saldhig oo lagu sameeyay dayactir iyo qalabayntii ay u baahnaayeen si loo hubiyo in adeegyada nabadgelyadu noqdaan kuwa bulshada oo dhan gaadha meel kasta oo ay joogaan. Hargeysantii imika waaxdu jirtay ee 5 sano u dambeeyay waxaanu fidinay caasimadii way fidasay. Hargeysa controlkeeda waxaanu ka labada control ee bariga iyo galbeedka midna waxaanu ka rarnay Haleeya midna waxaanu ka rarnay buurta kala jeexansheeda oo egas controlka meesha la dhawaad maqashay. anagoo dhismayaal ay ku shaqayn karaan oo wanaagsan oo laanta socdaal gali karto, sidoon gali karo, oo bileys gali karo, oo cashuuraha gali karaan, oo maaliyaddu gali karto. cashuuraha waxda cashuura dowladda hoose iyo wasaaradda maaliyaddu gali karaan ayaanu ka hirgelinay labada control. caasimadda Hargeysa waxaa lagu guuleystay in markii ugu horeysay si rasmi ah loo diiwaan geliyo guryaha ku yaala 9 degmo. taasi waxa ay noqotay tallaabo iyo guul weyn oo u furtay magaalada hannaan casri ah oo maamul iyo qorsheyn wanaagsan leh. diiwaangelintani waxa ay fududaysay tirakoobka aqalada, la socodka cashuuraha iyo fahamka sida ay u kobcayaan guryaha iyo ganacsigu. iyadoo la xoojinayo nidaamka diiwaangelinta dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa waxaa si la mid ah loo diiwaan geliyey dhammaan hantida maguurtada ah ee ay leedahay dowladda hoose sida sariibadaha, guryaha la dego, suuqyada lagu ganacsado, qolal kira ah kuwaasoo hore u ahaa kuwo aan si buuxda loo hayn xogtooda. maanta hantida dowladda hoose waxaa lagu guuleystay inay noqoto hanti la yaqaano waana la diiwaan geliyey waxaana loo maamulaa si hufan oo casri ah. horumarka muuqda ee caasimadda Hargeysa ka hirgalay waxaa dhabarka u ritay xaqiijinta waxqabadka iyo rumayntiisana waajib ka dhigtay shaqaalaheegan ah oo maalin iyo habeenba u taagan u adeegidda bulshada iyo kor u qaadista sumcadda dowladda hoose ee Hargeysa si ay u soo laabato kalsoonidii gudgalka ku dhowaatay ee bulshadu ka qabtay. waxaan aaminsanahay wixii guul la gaadhay inay tahay mid ay wada gaadheen dhammaan shaqaalaha dowladda hoose. qof kastaabana uu kaalin ku lahaa. waxaan u rajaynayaa shaqaalaha dowladda hoose ugana mahadnaqayaa wixii wanaagsanaa ee ay dadkooda u qabteen. waxaan rajaynayaa inay dadaalkaas sii wadaan, waayo dadaalka ay bixinayaan ayaa keenay guusha. shaqaalaweynaha dowladda hoose Hargeysa oo la'aantood aanay waxba inoo qabsoomeen. agaasimayaasha, guddoomiyayaasha, madax qaybeedyada, shaqaale hoosaadka iyo dhammaan shaqaalaweynaha dowladda hoose si weyn baan ugu mahadnaqayaa. maayarka caasimadda Hargeysa iyo golaha deegaanka ee imika jooga muddo xileedkoodii 5 sano ahayd ay joogeen inay wax qabad wanaagsan oo qurux badan ay ka qabtaan caasimadda Hargeysa. waxaan rajaynayaa inay caasimaddu noqoto
meel la hiigsado oo dhigeega iyo geeskaba la tartanta ayaan rajaynaynaa insha allah inay yowm min alayaam noqoto. waxaan ku faraxsanahay walaalkii ku gabagabaynayaa shacab yahow ammaanadeed ii dhiibatay oo 5 sano dhammaatay inaan